rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilih qofka dadka wanaagga tusaaba sidii qof sameeyo kale waxaynu ku dhex jirnaa weli mowduucayni ku saabsanaa tacliimu salaa barashada salaada waxaan ka hadlaynaa maa yajibu an tafcal qabla dukhuuli fi salaa waxyaabaha waajibka intaanad salaada bilaabin ka hor maxaa waajiba salaad waxay leedahay walaalayaal shuruudda qofku haddaan laga helin oonu samayn salaadu kama ansaxayso waa inuu shuruuddaa qofku dhammaystiro intaanu salaada bilaabin ka hor ilaahay inuu is hor istaaga maaha uu yidhaahdo salaad baan tukanayaa isagoon shuruuddii dhammaystirin 4 shardi ayaa ugu muhiimsan oo salaada ku ansaxda shardiga koowaad waxaa la yidhaahdaa tahaara qofku waa inuu tahaaro qabo taa macnaheedu waa maxay tahaarada jirka dharka waa inaad nadiif ka tahay oo nijaasada aad ka nadiiftay iyo goobtaad ku tukanayso waa inay nadiiftay oonay najaaso lahayn sidoo kale qalbigaaguna waa inuu daahiriyo oo aanad xiqdi iyo xasad iyo xumaan aanay ku jirin oo qof qalbi nadiif oo adigoo ah waa inaad ilaahay hor istaagto shardiga labaad waxa weye satru alcawra cawrada jirkaaga waa inaad asturto bani aadamku waxay leeyihiin cawro waa waxaynu xayawaanka kaga duwanay xayawaanka cawradooda bannaankay taala laakiin bani aadamka ilaahi subxaana watacaala wuxuu usoo dejiyey dhar ay isku asturaan sida awgeed ilaahay subxaana watacaala qur-aanku ku sheegay in ilaahay bani aadamka uu fahansiiyey inay cawradooda iyo xumaantooda asturaan cawraduna sida saxda ninka cawradiisu waa labadaa xagga hore iyo xagga dambe cawradiisu weeye waxaana ka bilaabataa xundhurta ilaa jilbaha culimmada qaarna waxay idhahdeen waa un labadaa hore xagga hore iyo xagga dambe unbaa cawraa 1 iyo 2ga laakiin boodyada cawra maaha marka culimmada isku khilaafsan inay boodyada cawrata iyo inaanay cawro ahayn laakiin waxaa qurux badan qofku markuu ilaahay hor istaagayo ugu yaraan inuu qofku boodyadiisa qariyo way qurux badan tahay gabadha iyada cawradeedu dee sayn wada ogsoonay dumarka iyo raggu isku cawro maaha marka dee caqliga caadiga ee saliimka haddaynu isticmaalayno oon aynaan dee ku soconaynin caqli la bedelay oo dee sida xayawaanka oo kale noqda caqliga fayow cawrada dumarku way ka duwantay cawrada ragga marka dumarka cawradoodu culimadu waxay yidhahdeen waa jirkeedoo dhan waa cawro marka laga reebo lugaha iyo gacmaha inta hore iyo wejiga marka intaa muuqanaysa marka laga reebay qur-aanku sheegay inta kale inay jirkeeda asturto weeye ilaahay subxaana watacaala isku hor istaagto iyadoo asturan shardiga saddexaad waa maxay waa dukhuulu waqti salaa salaada waqtigeeda waa inay soo gasho iyadoon waqtigeeda soo gelin inaad tidhahdo waan tukanayaa waa xaaraan salaaduna kaa sixi mayso waa inuu qofku ku dadaalo sharcigu waqtigu u dejiyo salaad walba inaad ku tukato salaad kasta waqti bay leedahay waqtigeeda ha ka horreysiin intuu baxay waqtigeeduna ha sugin inta waqtigeedu joogo salaada tuko shardiga afraad waxa weeye istiqbaalu lqibla qiblada inaad u jeedsato jihada ay kaa xigto qibladu waa inaad u jeedsato qibladu waxa weeye macnaheedu waa bayt ullahi alxaram fii maka waa meesha xurmada leh ee maka ku taala ee dadku u xajaan waa inaad goobtaa u jihaysato muhiimadda goobtaa loogu jeedsanayaana wax kale maaha in laga barakaysanayo iyo in la caabudayo maaha muhiimadda waxa weeye inay dadku meel wada jeestaan nidaam uma nidaamsan inay noqdaan oo mid ah oon kala jeejeedin 4taas shardi ayaa ugu muhiimsan waxay nidhay waa tahaaro oo qofku inuu daahir yahay jirkiisa iyo goobta ku tukanayo dharkiisu inay daahir yihiin waxay nidhay shardiga labaadna waa satru alcawra qofka cawradiisu waa inay asturan tahay shardiga afaraadna waa istiqbaalu qibla qiblada inuu qofku u jeesto iyo shardiga saddexaadan ka boodnay oo ah dukhul waqti salaa waqtigii salaada inuu soo galay 4taasa horta ugu muhiimsan marka 4tan ka ugu horeeya dahaarada dee waa lasii faahfaahin doonaa insha allah oo waynu sii faahfaahin doonaa dahaaraduna
dee waa islaamku aad buu dhiirigeliyey oo qofku inuu nadiif ahaado qalbi ahaan, jir ahaan iyo goob ahaan iyo dhar ahaan, meel kasta inuu nadiif ka yahay. berigii islaamku soo degay carabtu halkay ku noolaayeen jasiiratul carab waxay ahayd meel saxaro ah oo biyuhu ku yar yihiin. maca daalika haddana islaamku wuxuu dhiirigeliyey in nadaafadda lagu dadaalo oo qofku nadiif ahaado. waxaana ka muhiimsan nadaafadan jirka qalbiga. horta qalbigiisu inuu qofka nadiif iyo saafi yahay oo aanu shirki, gaalnimo, nifaaq, xasad, waxaasoo dhan xumaan, xiqdi, xan, waxaasoo dhan qofkiisu waa inuu qalbigu nadiif ka yahay. waayo ilaahay subxaana watacaala qalbi buka ilaahayna lama hor istaago, ilaahayna kaama aqbalayo salaad qalbigaagoo buka. yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur. ilaahay biriqsiga iyo waxa laabta lagu qarsanayo wuu ogi, laabtaada wuu daawacanaya. marka laabtaada nadiif intaanad ilaahay hor istaagin subxaana watacaala. jirka iyo dharka iyo goobtaad ku tukanaysana iska nadiif. waayo alطahuuru shatru liimaan. nadaafadda iyo in la isdaahiriya waa iimaanka qeyb ka mida sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam. miftaaxu salaati alطahuur. wuxuu yihi rasuulku furaha salaadu waa dahaarada, wa taxriimuhaa takbiir. halka lagaga baxayo salaada lagu xidhanayaana waa allahu akbar, wa taxliiluhaa atasliim. salaad waxaa lagaga baxaana waa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ayaa lagaga baxa. marka salaad waxay ku furantaa oo miftaaxeedu yahay inaad marka hore soo dahaaro qaadato. haddii jirkaaga uu jinaabaysan yahay ama nijaas ku taaban dharkaaga, waxaasoo dhan soo nadiif. haddaanad weyse qabina soo weysayso oo weysada kaa jabto. nadaafaduna waa min aliimaan, iimaankay ka mid tahay. marka tahaaradu waa awalu shardin lisalaa. waa shardiga ugu horeeya ee salaada lagu galo tahaarada wey. tahaaraduna si aynu sheegna waxay u qaybsamaysaa tahaaratu lqalbi waljism, qalbiga iyo jirkada inaad daahir ka tahay. tahaaratu thiyaab, dharkaagu inay daahir yihiin. tahaaratu lmakaan aladi tuqaamu fiihi salaa, goobta salaada aad ku tukanaysana waa inuu daahir yahay. marka waxay ka hadli doonaa insha allah jirka sida loo daahirinayo iyo waxa lagu daahirinayo jirka, biyaha lagu daahirinayo noocay yihiin iyo sida jirka loo daahirinayo, iyo weyse qaadashada ayaynu ka hadli doonaa, iyo janaabada sida la iskaga daahirinayo casharka soo socda insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. sidaas iyo